aan wanaagsan dadka aan daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa studio-heena magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka ku soo dhawaada daawadayaal mar kale iyo barnaamijkeennii taxanaha ee qiimeynta qodobka aan maanta dul istaagi doono ayaa waxa uu yahay sidii ay u dhacday doorashada Somaliland haddaba doorashadaasi sanadkan 2017 sidee ayay u dhacday maxay ahayd rajada caalamku ka qabo in Somaliland ay la timaado sidee loo codeeyay ama codadkaasi ay dadweynuhu uga qayb galeen sidee loogu shubtay maxaa khasaare dhacay hadaladii isdhaafsanaa ee gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo sida ay dadku u arkayeen mustaqbalka Somaliland iyo xisbiyada miyaa meel laga dhacay dimuqraadiyadii dadka codeynayay ama axsaabtu ma waxay ahaayeen axsaab dhaba oo loolan siyaasadeed uu ka dhaxeeyay mise waxay ahaayeen qabaa'il iyo isbahaysi si toos ah u bareeray xilligan la joogo xukuumadda cusubi maxay la iman doontaa maxaa dulbad dadku ay isha ku hayaan waa kuma madaxweynaha haatan loo doortay Somaliland ee Muuse Biixi Cabdi dhammaan qodobadaasi iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaa waxa aan ku wareysan doonaa oo barnaamijkeena marti inoogu ah Mustafa Martin oo barnaamijyada qiimeynta halkan inooga sii deyn jiray Mustafa ayaa toddobaadkan ka soo noqday Somaliland oo door bilood ku maqnaa kaasi oo xoog saaray ishan uu ku hayay sidii ay doorashooyinku u dhacayeen dhammaan gobolada Somaliland marka hore aan markale ku soo dhaweeyo Minnesota iyo studio-heena Mustafa Martin oo ka soo noqday Somaliland soo dhaw Martin waad mahadsantahay Ali waaye hilbi aan wad ka soo dhigtay xagga aadiya ilaa waxaan arkay tuulooyinkii u yar yaraa ilaa xaj saar ee noo socdo aadiya waaye wagaag barnaamijkeena baynu gudagali doonaa marka ugu horeysa sidee bay doorashada u dhacday goobjoogna waad ahayd goobjoog waan ahaa doorashadu waxay u dhacday siyaabo badan face hore iyo face dambe iyo face dhexe ayay kala lahayd amba 1 iyo 2 iyo 3 meelood bay ka dhacday sidaan anigu arkayay marka hore calaw waxaan ku horeynayaa tii ugu horeysay anigu aan arkayay ka hor intaan doorashadu dhicin waxa dhacay sabaabul markiiba labada xisbiye waaweyn ku dhex maray wadani iyo xisbiga yaada kulmiye waxa dareemaysaa dad magaalada joogto xisbiga kulmiye inuu isagu markiiba qaatay wixii la oran jiray early victory oo isagu iska dhaadhiyay guul degdega oo ahayd si kasta u dhacdaba amba loolan kasta oo xalaal ah dhaco guusheedu waa geed ma go'an guushaasi markaa iyagu horta ku dagaal galeen markii goreysay campaign-ka qodob kale isagu raacayay oo ahaa inay iyagu ku dagaalameen inay yihiin laba qabiil oo magaalada xulafo noqday oo leeyahay sheegaan marka labada arrimood ka duulayeen si kastaba ha u dhacday inaan helno iyo inaan labada qabiil ee magaalada ku xulafay sheegaanta isla markaa xisbiga waddan isagu wuxuu qaatay wixii la oran jiray political concession amba baqadiba gorasho ayuu markiiba qaato kama hadal arrimaha noocaas iyo abaabka noocaas kala maray tashan magaalada cidii commissionka amba doorashada qaabilsanayd dawladana cabashooyin uma gudbin markii halka la marayay ayaa calo markaa la galay electionkii iyo doorashadii markaas la galay waatay sidee bay markaa dadku u codeeyeen gobolada dadku horta runtii waxay ahayd wax aad iyo aad u qurux badan markii doorashada maanta ay bilaabantay anigu waxaan ahaa dadkii la siiyay gaariga specialka ah ee magaalada blade-ka gaarka ah haystay waana maray magaalada oo dhan goobaha oo dhan waxaad ka dareemaysaa xasilooni magaalada Hargeysa waa magaalada Hargeysa waxaad ka dareemaysaa xasilooni iyo wanaag iyo kalgacal dadka codeynaya ay rabeen inay si toos ah u doortaan qofkii marka iyagu la jiraan dadku waxay u badnaayeen boqolkiiba 70 haween ka yar 25 jir wixii dhex raacayna waxa ay niman iyaguna 25 jir ka yar laakiin dad walaalo ah online ku jiro wada nasanayo wada jooga oo daacad ka ah dimuqraadiyadda ay ahayd marka horta runtii waxa loo kartay aad iyo aad buu jawigu wanaagsanaa waxa joogay dadku iyaguna adduunka ka yimi dadku way faraxsanaayeen isbedel baa la rabay magaalada Hargeysa maanta waxay magaalo aad u cidla oo dhaaga oo dadka goboladii ay kala qabteen si iyaguna u footeen marka horta jawi aad iyo aad u wanaagsan ayuu ahaa markaan eegno labada xisbi ee ku loolamayay doorashooyinku waxay ahaayeen xisbiga kulmiye iyo xisbiga wadani runtii marka maalmihii ololuhu socdeen oo kale Hargeysa dhexdeeda haddaynu soo qaadano maalinta kulmiye ay ololeynayaan calamada la luulayo iyo dharka kulmiye astaanta gaarka u ah waxaa moodaysa in magaalada oo dhani ay tahay kulmiye maalinta ay codeynayaan maahan ay soo banaan baxaan ololaha dhinaca wadani iyo waxa moodaysa magaalada oo dhan inay ahayd xisbiga wadani sidoo loo kala garanayay
dadka dhabta ah ee taageersan xisbiga wadan iyo dadka dhabta ah ee taageersan xisbiga kulmiye taa macnaheedu waxa weeye waxaa ii muuqday dad fara badan oo hugunkaa iska raacayo oo iska lahaa ha noolaato laakiin aan cidna la jirin maxaa la odhanaya waa runtaas labada xisbiba aad iyo aad bay u dadaaleen inay dadkooda soo kiciyaan oo is abaabulaan runtii laba tartan weyne ka dhexeeyana wuu ahaa marka abaabulka waxaa daba socday dad iyagu magaalada degan oo dhalinyaro ah oo inta badan iska jeclaa ma garanaysaa socdadan laakiin waxaad arkaysay labaduba ina xamaasadu aada kulushahay labaduba cirkaa marayeen halkaa waxaad ka dhadhaminaysay calow oo ku jirtaa wixii anigu aan eegay waxaa ka mid ah wixii la odhan jiray popular vote popular vote waxa weeyaan wadada amba directionka wadanka codkiisa u socdo dadku waxay ahayn dad 100,000 oo qof oo gobolada iyo tuulooyinka joogay aniguna soo wada maray 6 gobolba waxay ahayn dad wada isbedel doona oo runtii aad arkaysay popular vote waxa weeyaan dadku diiladooda dambe maxay tahay aad iyo aad bay u rabeen isbedel xoog badan wadanku helo laakiin xisbiyadu aad bay u tartamayeen waaye waxaa guulaystay xisbiga kulmiye oo madaxweyne loo doortay guddoomiyahoodii xisbigaasi muuse biixi cabdi waxaa laga guulaystay xisbiga wadani guusha iyo guuldarradaasi sida u dhaceen sida u dhaceen horta waxaan doonayaa inaan ku noqdo horta qodob electionkan horta calaw waxaa mid adduunka oo dhan laga filayay international community-ga dadku ay filayeen dalku uu filayay waxaa kaloo halkaa laga sugayay wixii la oran jiray hybrid system wada noolaashihii amba xeerarkii amba habkiinu qaadanay ahaa qabyaaladda iyo dimuqraadiyadda iyo diinta in la mideeyo in uu 25 sano oo dambe amba 26 sano hore inaafacay 26 kale inaafici karo marka horta adduunyada international community ishay ku haysay systemkaanu qaadanay ishu ku hayeen oo kabco darafyada reeraha degan ee awdal iyo sool iyaga laftigooda si gaara ay electionkan u eegayeen oo waayo sool oo kale waa markii ugu horeysay ay footaysay dadku 7 sano oo kulmiye ah oo calool xumo mid dhaqaale iyo mid wada noolaasho ku ridayna waxa laga filayay horta saadaal marka horta electionkan waxa election aad rajadiisu dhinac kasta ay magaranaysaa wax badan looga filayay nasiib darro election waxa ku gadaamay waxyaabo badan ayaa horta ku gadaamay intaana guusha iyo gool darada u noqon waaye maxaa ku gadaamay waxa ku gadaamay horta markii ugu horeysay waxa la suuqa la soo galiyay dad doonayna kaarar iibsadaan oo codad qaataan ama dadkii magaranaysaa lacag siiyaan waxa la rajisgareeyay dad caruur ah oo dhalinyaro ah waxa la rajisgareeyay dad dhintay waxaan anigu shaahid u ahaa sanaaduuq sideedii inta qaad loo qaatay loola cararay marka horta waxa meesha markiiba ka soo baxay yaa waxa sameynay marka xisbiga kulmiye gaar ahaan dawladda ayaa indhaha ku arkay ana indhaha ku arkay laakiin dawladda ayaa waxaan garwadeen ka ahay lama kala saari karo xisbiga kulmiye iyo dawladda runtii xisbiga kulmiye wuxuu ahaa dawladda marka horta waxa ka dhacay fraud aad iyo aad weyn baa u dhacay ta ugu dareed waxa ahayd fraud systematic oo kaararkii diiwaangelinta waraaqii lagu codeynayay ayaa horta iyagana lasoo samaystay iyagoo intii ka badan soo markaa waxaa dhacday sanaaduuq badan oo 300 oo qof ku jirtay oo serial number kii lagu codeynayay raaci lahayd in laga helay horta number intii ka badan waxa kaloo fraudka u weyn uu dhacayba isla maalintii ugu horeysay baa horta fraud baa ku dhacay systemka waxa laga saaray wixii la oran jiray biometrics waxa ay kaarkan qofka codeynayay ishiisu inay horta israacaan oo system caynkaas ayaa la abuuray systemkuna meesha uu ka baxay anigu shaahid waxaan ahaa habeenkii ugu horeysay ee magaalada codadku soo dhaceen gebi gees ilaa gees gobol kasta horta waxa watay xisbiga wadane laakiin gelinkii dambe ayaa suuqa waxa la soo galay dacaayad oo 80,000 oo cod ayuu kulmiye ku helay waa markii aan la tirin gobolka waqooyi galbeed iyo magaalada lahda gabiile taa waxa raacday 16 sanduuq oo laga soo helay gabiile oo iyaguna foojiri ka buuxdeen marka horta bahashan waxa u dhacday systematic fraud amba qaab taxana oo isdaba jooga oo dhaco oo booba waxa kaloo daba socday in hanjabaad weyn lagu sameeyay xisbiyada mucaaradka ah waxa kaloo daba socday muraaqibiintii meelaha tag lahaayeen waxa joogay meel kasta nin ciidana iyo nin ka socda commissionka qolaha diiwaangelinta si toos ah ayaa waxa looga soo tuuray qolooyinkii xisbiga mucaaradka marka tan waxa ay systematic fraud laakiin waxa daba socday arrin argagaxa calow oo ah boob cadaana oo aan la isu turaynin oo la kala marorsanayo ayaa meesha ku jirtay waan ku dambeyn doonaa arrinta commissionka laakiin waxa way horta waxaas oo dhan ayaa ku gadaamnaa doorashadan 80,000 ee yiraahdeen waanu ku badnay ayaa arrintan gabagabadooduna ku dhamaatay 80,000 waxa ay argoosi siyaasadeed oo berigii ugu horeysay madaxweyne Silaayo waa tii laga helay 80 qof marka 80 kaas daba socday marka wuxuu ahaa system qadaa'id ku dagaalamayo laba reerna ku heshiiyeen reerihii kalena lagu heshiiyay marka system dhaxalkiisa aanu arki doono oo baaba ah ayaa election ka dhashay reeraha waan eegi doonaa waxaan doonayaa inaan fahmo xisbiga wadani
cabatinkii ugu horreeyay waxay ka cawdeen sanduuq berbera laga soo helay buug waxa la yidhahda buuggaasi codadka kaararka laga bixinayay baa ku jiray cabashada ay ka cawdeen waxay kaloo ka cawdeen sanaadiiqdii lagu codeeyey ee gobolka gabiley waxaa igu maqaalo ah in haddana ay ku qanceen guddoomiyaha xisbiga wadani iyo guddoomiyaha commissionka oo wada taagan waxa ay labadooda sheegeen inay isafgarteen xisbiga wadani iyo commissionku oo arrintii sanduuqa laga heshiiyey tii gabileyna dib loogu noqday oo la hubiyey oo tiradu ay wax saxa noqotay arrimahaasi uu raalliga ka noqday guddoomiyaha xisbiga wadani miyaan la odhan karayn arrintaasi waa arrin dhammaatay oo ay raalli ku ahaayeen sida hawsha u socotay horta waxaa dhacay markii horeba xisbiga wadani saddexdii qof uga joogay commissionka la shaqeynayay ayaa waxay arkeen istaba marin aada iyo aada u badan waa marka intaanu systemku gelin system fraud amba xada oo taxano ah weli ma gelin laakiin waxay hakad markii horeba ay dareemeen arrintaa waxay u gudbiyeen xisbiga mucaaradka madaxdiisa dabeedna madaxdu waxay la hadashay commissionka commissionku markiiba waa ka dheega adeegay oo wuxuu yidhi arrintan waa arrin saxa wax dhibaanu aragnana meesha ma jiro dabeedna muu tixgelin calaacalkoodii xeerka diiwaangelinta waxaa ka mid ah hadduu xisbi tabdo wax in markiiba laga qanciyo sanduuqaana la joojiyo markaa commissionku kumuu dhaqayn arrintaas waxaanay soo sheegeen in natiijadaba ay ku dhawaaqi doonaan beri ilaa saa dambe markaa waxaa jiray waxa la dhaha voters intimidation markiiba baqagelin xisbiga ayaa kaga yimi commissionkana kamuu dawaneyn dowladda siday u hadlayeen laakiin dhexna kamay ahayn systemka dabeedna halkaa waxaa ka dhacay markiiba in iskahorimaad uu ka dhaco magaalada hargeysa iyo burco iyo sanaag anigu habeenkaa waxaan joogay magaalada hargeysa iskahorimaadkaas laftigiisu waan la kulmay khatarna waan ku galnay marka waxa way horta systemka markaad eegto may tixgelinaynin commissionerka xisbiyada mucaaradka ah xisbiyada mucaaradkuna waxay la tashanayeen hadda jir waa dadkii uga shaqeynayay magaranaysa commissionerka haddaan su-aashaadi kusoo noqdo tan uu guddoomiyuhu yiri sanduuqii waanu eegnay oo waanu ka heshiin waxay ahayd in sanduuqii dib loo furo oo dib loo eego marka heshiisku ka hadlayay heshiiskaa weeye laakiin ma ahayn heshiisku ku qanacsan yahay dabeedna taa waxaa ka dambeeyey qaab systemkiiba fraud amba taxane loo wada geliyey oo ilaa gabiile ilaa gobolladoo dhan uu ka wada dhacay systemkan calow wuxuu ka bilaabmay maaha gabiile qura ilaa ceergaaban ilaa sool ilaa sanaag ilaa tugdheer systemka gebigiisaba fraud ayaa ku wada jiray meel kasta waxaa ka buuxay sanaaduuqda dad aan loogu talagelin codaynka meelaha qaar waxaa laga soo sheegayay ilaa xitaa in gobolada bariga inuu xitaa ninka la yihahdo buurmad uu keenayay dad socda oo lahaa ku dara tirada iyagoon xitaa kaararka baxayn marka kaarhku qura laguma kala codaynayn systemka calow waa inaad ogata calow dowladdu marnaba umay talagelin in lagu kala badiyo cod iyo kaar xisbiga mucaaradkaa aaminsanaa taa in lagu kala badinayo laakiin dowladdu go-aamadeedu mar hore caday sidaan doonana waan ku helaynaa markaanu doonana waan ku helaynaa xoog iyo baawarna waan ku marinaa qodob isna ka mida qodobada aynu odhan karno guuldaradii ku dhacday xisbiga wadani mid haddaynu tusaale soo qaadano ayaa raba inaan ku weydiiyo si aad dadka aada ugu cadaysid wararka aniga gaar ahaan soo gaadhay waxay sheegayaan in dadkii u codayn lahaa xisbiga wadani ee kaararka qaatay dib looga iibsaday iyagoo raalli ku ah dabeetana haddii 1000 qof laga iibsado 1000kaa qof uma codaynayaan wadani kaararkaas way dhinteen maxaa ka jira in kaarar fara badan lacag loogu bedelay xisbiga wadani horta waxaa jira waxyaaba badan oo ay ku kaceen dowladda iyo kulmiya laakiin tusaalehaan 6 gobol markii laga footeeyey codadkooda la bixiyey aqlabiyadda waddanka calaw anigu shaahid baan ahaa meesha trend amba dhaarashanka wadda u socday isbedel doon ayuu ahaa gobolada marka tiradooda la eegana horta xisbiga runta guuleystay waxay waa xisbiga wadani weyn xagga codadka markay laakiin power weyn baa lagu soo rogay ajandaha dowladda way ku jirtay inay mararsadaan maxaa u raacay marka intaas dowladdu waxay u raacaysay inay iibsato kaarar waxay u raacaysay inay dadka laaluushto waxay u raacaysay inay boob cadba ku qaado dowladdu xitaa umay baahnayn ba inay dadka iibsada oo kaara ka qaadato laakiin boob cad oo asla ayay ku qaadatay diiwaangelintan lama oran karo xisbiga wadani waa laga badiyay haddii kaarar la cidinayo aqlabiyadda waddanku ilaa awdal ilaa maroodi jeex ilaa inta udhacaysa gobolada waxay isbedel doon laakiin isbedel doonkana waxaa cabriyey dowladda waxaana lagu dhacay waxa weye waa systematic fraud waxaan rabaa iyadana inaan aan caddayno doorka uu ku lahaa guuldarrada kusoo dhacday xisbiga wadani guddoomiyaheeda cabdiraxmaan cero door intee leeg buu ku lahaa shakhsiyan marar badan oo hore inaga halkan ka hadalay isaga laftigiisu marar badan horta qaladaad badan oo aada iyo aada u tiro badan ayuu sameynayay qaladaadkiisuna waxay ku koobnaayeen ugu dambeeyey markii dambe natiijada lagu dhawaaqay inuu si toosa u qaadaco ay ahayd wuxuu sameeyey dhowr arrimood oo kala jecla ta ugu wacyiga kuleed waxay horta dareenka ummadda marnaba muu turjumaynin mararka qaarkood isagoo qoslaya amba oo degan ayuu ka hadlayay xaaladda ummadda waa markii markaa dhaawaca burco uu ahaa 3 qof oo la dilay waa markii sanaag ay ka ololeysay
waa markii gobolka Maroodi Jeex ay xabadu ka dhacaysay waa markii dadkii isaga u codeynayay ee u soo halgamayay maal iyo noolba la geliyay ayuu markaas isagu wuxuu ku dhawaaqay arrin oo natiijada ay soo saaraan ee magaranaysa commissionku anigu waanu adeecaya mucaaridnimo kuma hadal bini'aadanimo kuma hadal kartina kuma hadal firfircoona kuma hadal runtii ninka xisbiyada mucaaridka jabiyayna isagu ka koobuha natiijada maalinta waxa ay inuu qaadaco si toosan u diido marka isagu problemka waa qayb kamid ah inkastoo jecel ku dambayno arrimihiisa sida gaarka marka xisbiga wadan waxaan oran karnaa waa niman la yimi gudoomiye jilicsan siyaabo aynu hore u soo sheegnay waa niman gudoomiye jilicsan la yimi ajandaha dawladana waa dawlad aanay fahansanayn meesha systemku waxa weeye system lagu talagalay 7 sano hore ay gacanta ku haystaan 30 sano dambana ay gacanta ku haystaan marka waxa ay inay fahmaan inaan sanadkan kaar lagu kala badinayn dimuqraadiyadda caalamka meesha way soo xidhaan sanaaduq lagu kala badin maayo xisbi toona waa inay ogaadaan mustaqbalka reesana mar adaa meesha goobjoog ka markaan xaqada ka hadalo xisbiga kulmiye iyo xisbiga wadan ayaa tartamaya laakiin waxa si toos loo arkay saddex reer oo tartamaya meesha sidee u saameysay qabyaaladu doorashada qabyaaladooda laf dhabar bay ahayd systemka horta kulmiye laba reer baa ku shiraakoobay labada reerna ma ay arkeen isbedel dambe inuu ku yimaado wadanka haddaynu afka ku dhafano laba reer baa oo la wada garanayo habar jeclo iyo hawal baa ku shiraakoobay systemkan dawladda 7 sano gacanta ku hayay doonayeen inay 30 sanadood gacanta ku hayaan oo dambe laakiin si kasta waxa taa ummadda intii kale way sabaabushay xisbi yar bay samaysteen runtii dimuqraadiyad iyo cadaaladna way isticmaaleen waanay ku guuleysteen laakiin si toos ah ayaa looga marorsaday iyadoo loo eegayo waliba loo dalbaday RRU military iyo xoogii dawladda marka horta dimuqraadiyadii waxay ka baxday ifkii calow tani waxay ahayd toos waxay ahayd reero isweeranaya baa election kan waxa reero toos isu weeraraya dhaqaale ahaan iyo deegaan ahaan isu barbixinaya waana mustaqbal xumadii abid ku habsatay ummadda reer Soomaaliland si dambe oo loo daweyn karayaan ma jirto waayo xisbi dambe oo la isku hadlaynayo oo guuleysan kara ma jirto mar haddii dawladda boobka noocan samaysay dawlad dambe oo magaranaysa la aamini karayna ma jirto marka waxay noqonaysaa systemkii raana abuurana dimuqraadiyadda walaaltinimada iyo tanaasul ku noolaa maanta farahu ka baxay way mustaqbalka Soomaaliland iyo xisbiyada maxaa oranay wada 27 sanadood ayay horta soo wadnay Soomaaliland runtii system wanaagsan oo caafimaad qaba ayay ku dhaqmayeen isu tanaasul iyo wada noolaansho iyo deganaansho ayay Soomaaliland ka jiray laakiin taas maanta waa la soo afjaray waxaana loo aadeynaya waa dawladda kulmiye iyo reerihii ku shiraakoobay xumaanta noocan ah ilaa xadka ah ee ah barabixin dadkay la noolaayeen musuq maasuq ilaa xada iyo dil iyo dhac ay ku kaceen waa arrin goynaysa laf dhabarta waxay ummadda reer Soomaaliland waa arrin dimuqraadiyadii caburisay waa arrin wada noolaashaheeni dhaawacday waa arrin aan laga soo kalan karin calaw tusaalaan ku siinaya saddexdii xisbi maanta u cid hawadu ka baxay hawadu ka baxay udubna hawada ka baxday wadanna maanta hawada ka baxay wadanna ma soo noqon karo marka kuma soo noqon karo saxada siyaasadda leadershipkooduna ma soo noqon karo xisbigaasna dib ma soo noolaan karo tusaalaan ku siinaya haddii xisbi dambe la abuurana go-aanka dawladda ka go-an waxa weeye mar kasta inay boob iyo dhac ku qaadato meeshan reeraha ku heshiiyey 30 sano soo socdeen baawarka iyo dhaqaalaha wadanka haysno dimuqraadiyad dambe oo ka suurtoobi kartaana ma jirto sida kaliya wax laga qaban karaa maanta waa one option waa luqadda ay fahmayaan iyo sida u dhaqmayaan in loo dhaqmo mar haddii systemkii la wada noolaa lagu dhaqmi waayay qof kasta marka waxay ku kalifayaan xor noqdo sidii si difaaci lahaa ayay noqonaysaa waxaan eegaynaa mar kale qabyaaladda ama qabiilka sida loogu codeeyay xisbiga wadani oo kale waxay moodaa niman culus oo siyaasiyiin oo beelo kale ka soo jeeday oo ku soo biiro xisbiga wadani oo ka mid yahay maxamed biixi yunis oo ka mid yahay xirsi xaj cali oo ay ka mid yihiin rag kale oo kulmiye ka tirsanaan jiray waxa la yiraahdaa raggaas beelahoodii lama imanba iyagoo maran oo keligooda ayay meesha dhex taagnaayeen taas waxay ahayd waqcad ka mid ah waqcadaha gaadhay wadani waxa kale oo isna waqcad weyn ay ka gaadhay xisbiga wadani gobolka balgubadle oo u yahay caasimadda oo markii hore rajadu ahayd in xisbiga wadani ay dhammaantoodba ka tirsan yihiin si yeeshee mar qura isbedelay oo ugu shubay kulmiye markan eegno madaxdii ugu sarreysay mas'uuliyiintii maamulayay xisbiga wadani miyaa la odhan iyaga laftoodii ayaa isu sii aamusay oo waxba la iman waayay horta runtii aqlabiyadda markasta waynu ku celinay aqlabiyadda wadanka horta waxaa helay xisbiga wadani foodka wadankana xisbiga wadani baa helay kulmiye meelaha wuxuu ka helay
haddaad laakiin xisbiga madaxdiisa ku noqoto dad badan waxaa jiray la moodayay inay karti iyo firfircooni dheeraada leeyihiin laakiin lagu hungoobay taas waxaa keenaya imika xirsi oo kale haddaad eegto xirsi aad iyo aad buu u dadaalay laakiin reerkiisa waxaa ka go-an 100% inaanay reerka cabdiraxmaan ciira ka dhashay ee garxaajka leedahay waxba helin waa go-aan cad oo ay qaateen reerka awalna waa la mid waa go-aan cad oo ay qaateen waa shiish amba waa toosh cad oo la qaatay waana inay ummaddu fahanto qabyaaladda anigu maan keenin waa systemka waddanka somaliland ku dhaqan yahay maanta caynkaas ayaa xirsi wuu hungoobay qoladan kale u timi wadana laftigiisna qolooyinkan awalka ka soo jeeday iyaga laftigooda way soo hungoobeen waayo fundamentally waxa ka hooseeya laba reer oo shaqaaqoobay oo jeegaan samaystay oo soo jirtay ayaa doonaya maamulka ummadda reer somaliland inay dhexal wareejiyaan oo aafaadiyaan markaa qof qudhina kama kici karan laakiin codka markaad eegto gobolada dadkii sida xalaasha u footeeyey ilaa gabiiley ilaa boorame ilaa waddanka oo dhan markasta waxaa helay waa waddan weyn marka somaliland dib waxa u dana inay dimuqraadiyaddii iyo madax banaanidii meel iska dhigto oo ay doorashooyin ku galaan awal iyo aakhir iyo awal iyo aakhir iyo reer siday u eg tahay waxaynu inagu samaynaa system aynu kaga gudubno reeraha waxaynu samaynaa dimuqraadiyad xisbiyaa tartamay xisbiyadu waxay noqotay waxna in lacag la geliyo oo la laalusho oo reer u codayaan waxna la burburiyo wixii yaraa markaa weelkeenu samaynaysanaa dimuqraadiyadda hanaqaad wuxuu noqon kari waayay sanduuqiga waa la boobaya marka adigu waxaad ii sheegtaa markii xisbi la abuuro guushiisu maxay noqonaysaa markii xisbigii guulaystayna la boobaya markaa dimuqraadiyaddeena suurtagal maaha qaabkaynu dhaqmaynana waa qaab beelaysan iyo qaab reeraysan su-aasha dambe waxa weeye somaliland mustaqbal dambe ma leedahay horta dimuqraadiyad dambe oo ka socon karta somaliland ma jirto sida keliya ku socon karta waxa weeye dowladda maanta dhalatay in gees ilaa gees ummaddu ishabayso kaga hortagto maalinta December 14 waa maalinta la dhaaranayo madaxweynaha banaanbax weyn oo ay tusaan aqlabiyadda dalku sidoo ahaa iyo dadku sidoo ahaa iyo dareenka shacabka haddii ay taas sameeyaan oo ay dowladdu dareentay inaanay ku guuleysan cod ee ku guuleysteen musuqmaasuq waxay iman kartaa miiska la isugu yimaado xalaw laakiin iminka intuu ninna leeyahay dimuqraadiyaddii baa la baabiinaya nabadgelyadii ninkii baawarka iyo lacagta haystayna uu ku tumanayo oo dadkii baabiinayo horta dimuqraadiyad suurtagal maaha iminka dimuqraadiyadeena iyo nabadgelyadeena waxa noqotay wax la isku cabsiyo dadku iminka heegan waxa u yihiin dadku waxa loo adeegsaday RRU waxa loo adeegsaday lacag waxa loo adeegsaday power yani maalin dhawto burcaayo waxa dalkiisa ciidamo military oo aad moodayeen waddan kale ku duulayaan banaanbaxdana military laguma daweyn karo RRU dadka looma adeegsan karo RRU dadka looma adeegsan karo dad banaanbaxay marka waxay noqonaysaa ciidankii yaa inuu caburiyo dadkiisa marka taasi waxay kalifaysaa sida kaliya luqadan lagu hortagi kara waxa weeyaan banaanbax daba joog waxay noqonaysaa in reeruhu ay ka gaashaantaan ciidamadan RRU-da gobol kasta iyo tuulo kasta inay sameeyaan waayo systemkii naga dhixay meesha uu ka baxay taas marka miyana keenin dhimasho iyo dhaawac iyo la iska hor yimaado marka la isla galo marka waa talo dhimasho iyo dhaawac way socdaanba imika dawladii baa ku dhaqmaysa systemkan yaa ka mas'uul marka dadka dhimanay dadka dhaawac waxa ka mas'uula systemkan beelaysan ee doonaya dadka caburiyo dadkii ururada samaystay lacag iyo laaluush iyo boob cad kaga qaadaya marka arrintan waa arrin dhaawacaysa dimuqraadiyadda wada noolaashihii iyo sinaantii iyo cadaaladii dadkuna waxaan uma dul qaadan karaan laakiin martin sida imika aad u hadlaysid ee nool muu hadlin gudoomiyaha xisbiga wadani si dibacsan ayuu isagu wuxuu yidhi waan qaadanay hawshaas annagu eegayna nabadgelyada iyo danta caamka ee reer Soomaaliya horta gudoomiyaha hadii dib ugu noqdo barashar badan baa haystay waxa horta markiiba soo galay meesha culimaadudiin iyo ganacsato waxa soo galay salaadiin baa soo gashay simbali arrinkaasna wuxuu ku dhamaaday gudoomiyaha in lacag la siiyo 3 milyan ilaa 5 milyan oo dollar dabadna waddanka iskaga baxo marka horta isagu wuxuu dhabarjibiyay lacag 3 milyan lacag 3 milyan weeye negotiation oo loo celiyo marka wixii hanti ka galay laakiin wuxuu caburiyay dareenkii ummadda reer Soomaaliland wuxuu caburiyay dimuqraadiyaddii wada noolaashihii isnaantii iyo cadaaladii wuxuu ku wacad furay wax alla wixii ummadda u soo halgantay kana calow khatarteeda leedahay markii gudoomiyihii uu ka xiriir furmo mucaaradkii dabadna maanta mucaaradku waxa soo baxay iyagoo gobolada jooga inaanay maskax horkacda aan ahayn taasaa markaa keenaysa inay dareenkooda shacab ahaaneed ka turjumaana laakiin gudoomiyuhu muu noqon nin isa soo taaga oo yidhaahda halay tiriyo dib baan ugu noqonayaa intaa midna muu noqon calow arrintani khatarteeda leedahay maanta mucaaradna ma hayno urur dambana lama samayn karo golo guurti iyo golo xildhibaano dambana lama dooran karo arrintaas waa arrin soo gudbay aynu maamulka cusub ee uu hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha guurtida generaalada ciidamada intuba waa xisbiga kulmiye
sidee dowlad caynkaasi markaa ay usii shaqayn kartaa maxaa la odhanaya sida aynu si bayaamino golaha guurtidu waa Salebaan Galan oo reerkaas ka soo jeeda ina biixi oo imika dee election lama oran karo waa la doortay laakiin dee inqilaab military ku qaatay isaguna waa jeegaantaas ka soo jeeda waxa kale oo ka soo jeeda jeegaanta golahii xildhibaanada ayaa u badan waatan golihii baarlamaanka la wareejiyey waxa weeyaan badidee generaalada militariga oo dhan waxa weeyaan barabixin xooga wadanka ku socota waana laba reer oo iskaashaday marka horta waxa weeyaan dee aqlabiyadii wadanka horta ma haystaan majority-gii wadankana ma haystaan mucaaradnimo xoogan oo gobolada kaga dhacda ayaa la sugaya banaanbaxyo isdaba jooga iyo dee in la joojiyo systemkan ay wadaan haddaan maanta systemkan laga hortagin systemkan wuxuu isu noqonaya 30 sannadood amba 40 sannadood khatarta inagu soo socotaa waxa weeyaan iyaga laftigooda u arkaan inay si dhaba u guuleysteen oo ay superior yihiin dadka ka sarreeya taasina arrintaasna maaha marka arrintan ummaddu ma qaadanayso maanta beritana ma qaadanayso saa dambana ma qaadanayso dadkana laguma caburin karo mar labaad nabadgelyo iyagoo ay baabiinayaan iyo Soomaaliland iyagoo ay dilayaan laguma caburin karo marka dadku si toos ah ayay uga hor imanayaan dawladdan iyo systemkan waxaan anigu saadaalinayaa 6 bilood gudahood in dawladda impeachment amba collapse lagu qaado taasoo calow keeni karta wada noolaanshihii ummadda sinaantii iyo cadaaladii in mar labaad system kale la wada samaysto fursadda kaliya maanta meesha ku jirta anigu aan arkay waxa weeye laba xisbi baa horta dhaafay ucud iyo wadani waxay nagu haray waa kulmiye dawladdan kulmiyana la tagaya dabadna waxay noo soo baxay system cusub oo inagu markaa xanaqaad ka abuuran karo Soomaaliland wanaageedii wada noolaashaheedii dimuqraadiyadeedii iyo isnaanteedii dib loogu soo celin karo laakiin systemkan waa system aan diidnay waa system aan ugu diiday barida diidanahay saadamba diidanahay mustaqbalkana diidanahay waa system aan u baahan inaan ka soo afjarno wadanka wada noolaashaheedii iyo isnaanteedii iyo cadaaladdeedii walaal ma soconayso tusaalaan ku siinaya gobolka Sool waa markii ugu horeysay footeeyeen ay ku soo bireen ummadda reer Soomaaliland 27 sanadood bay ka maqnaayeen maanta codkoodii iyo aqlabiyadoodii fraud baa ku dambeeyay international community way ogtay adduunka dhan waa laga ogay waxaanu qaadan karnaa inqilaab military 21st century ugu dambeeyay ma aha calab waxa joogay kor joogto eegay sida doorashooyinka u socdaan oo ka socday bulshada caalamka aadiya waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bulshada caalamku iyadu ma fahamsana reer hebel iyo reer hebel bas eryanaya laakiin waxay fahmi karayaan khaladaadkii dhacay iyo sidii wuxuu dhacay aan adoo soo koobaya aragtida beesha caalamku sidii u arkaysay doorashada Soomaaliland horta maalintii ugu horeysay waxay u arkeen arrin aad iyo aad u wanaagsan oo guula ayuu arkeen aniga lafteedu saasan arkay iyagu dhowr arrimood bay eegeen arrinta horta Kenya ka haysatay electionka muranka inay Soomaaliland tusaale u noqoto inay geeska tusaale u noqoto Ethiopia iyo Djibouti iyo Kenya horta arrinta way filayeen waxay kaloo filayeen arrintii biometric arrinta systemkan kaarka iyo isha wada socda ee loo ilaalinayo magaalada xatooyada arrintaana way filayeen waxay kaloo eegeen arrimahan beelaha daafaha in hadday codeeyaan laftigooda wadanka aaminaan shantii qodob ka kacbay noqotay kow horta meesha carruur baa la keenay waxa la keenay system taxano booba waxa la keenay military waxa la keenay RRU tii Kenya inagu ka darnay oo deegaanka badhac iyo balay nagu kacday tii wada noolaashadeena ugu xumaaday marka international community oo dhan waan akhriyo New York Times Post Washington Global Washington Post waxaan oo dhan waan wada akhriyo waxay soo saareen Somaliland systemkeedii maanta is collapse way marka waxa weeyaan waxay la tageen guul daro ay la wada tageen inoo joogno gabagabadii barnaamijka inteena soo gabagabeen bal markale aan ku weydiiyo guul darada gaadhay xisbiga wadana sidii u arkeen taageerayaashu niyadooda sida maxaa loo runtii oda guul daradaas anigu ma oran karo guul daradaas waxay ka timi codayntii laakiin waxay ka timi systematic loo dhacay oo loo boobay guul darada iyaga ku timi aan u malaynay noqon doonto mustaqbalka fursad waxa weeye waa gudoomiyaha laftigiisa madaxda xisbiga mucaaradnimadii adkayda loo baahna xitaa markii la dhacay ee dadkooda la leeynayay laguma hagin waxay iyagu dareemayaan dad ismaamulay oo runtii karti iyo firfircooni keenay gobolada oo dhan laakiin la boobay madaxdoodna ay ku guul daraysteen codkoodii baabiyaan waxa laakiin ku soo socota arrin kale oo aan doonayay inaga digo xisbiga wadani gaar ahaan xubnihiisa madaxda xisbiga wadani imika waxay heegan u tahay inay jebiyaan mucaaradnimada ummadda reer Somaliland gaar ahaan xisbiga wadani gaar ahaan gudoomiyaha iyo madaxda ku xiran laaluush bay qaateen lacag bay qaateen waana tanaasulaan imika sida loo wakiishay waa sidii Faysal Cali Waraabe inay iyaguna u jebiyaan xisbiyada oo marka mustaqbalka waxaan arki doonaa inay ku biyashubtaan dhamaantood xisbiga wadani taa macnaheedu ma aha wada noolaanshihii sinaantii cadaaladii rabnay marnaba heli mayno ma aha dadku markaa waa inay ogaadaan madaxdii iyo xisbiga wadani way kala xiriir furnaan guusha u darana waxay ku timi markii uu gudoomiyuhu arrintoodii fulin kari waayay
maadaama aynu ka hadalnay qabyaalad oo dadka Soomaaliyeed meel kasta waxa joogaan xataa kuwa ina daawanaya ay mar kasta dhinaca qabyaaladda xoog saareen aad iyo dad badan baa imka aaminsan markay ku daawadaan Mustafa in ay dhahdaan Mustafa Martin wuxuu u hadlayaa reerkiisii ama xisbigiisii ama dadkiisii dadka fakarka qaba maxaad oranay horta hore waynu uga hadalnay calowda gudoomiyaha iyo xisbiga wadani way labadana xubna kama lahayn way dadku runtii waxay nagu gubaabiyeen sidii fiicnaadii aanu u dhignay iyo sidii loo saadaalnay inuu dhaxayso inagu arrintan weyn ogeyn xisbiga mucaaradka hore inuu qualified maahay xisbiga kulmiina hore inuu ahay waa xisbi dhacay ummadda waa xisbi dhexay wareejiyay Somaliland kiina maanta cali waxba iskama bedelin horta runtii dadka qaar waxa ay nagu yiraahdeen mafaaliyaal baati sideen doono ayay sideen rabnay ama sideen inagu saadaalanay ayaa u dhacday anigu horta ma yihiin nin reero hadlaya Somaliland oo dhan dadku degan reero ma arka laakiin systemka cali cuqdad buu gaa systemka maanta wuxuu gaaray heer aan laga soo celin karin reeraha si toos ah ugu shiraakobay Somaliland dhaqaalaheeda wada jirkeeda iyo sinaanteeda haddaynaan sheegin oo inaan iska qabanna ma sii noolaan karno dabadna ururaha loo samaystay ururadina way boobeen arrintan waxay nagu soconaysaa 30 sanadood marka aniga iyo adigu iyo dowladda reer Soomaaliya aqliga saliimka waxay keenaysaa in waxaan laga hortago siyaad bare markii xukunkiisa la suluugay sida un baa la soo organiskay reero un baa ka hortagay suluugay tanna maanta tii kama duwana afbarorsigii caburintii cadaalad darradii dhaqaale darradii wixii oo dhan waxa daba socda xitaa boob xaqii electionka marka waynu ka hadlaynaa si istaba joogtaana waynu sheegaynaa waaya ugu dambeyntii Martin inagu soo gabagabeynayna barnaamijkeenan maxaad oran lahayd guud ahaan wadda Soomaaliland guud ahaan wadda Soomaaliland gaar ahaan Somaliland horta wixii ka dhacay nasiib darro weyn ayaan ku tilmaamay si gaar ah waxaan u tixgelinayaa reerahan daafaha ee yaala ee iyagu rabeen aqliyeedkooda ama codkooda wax weyn ka dhigtaan sanadkan ma dhicin waxaan si gaar ah Somaliland ugu xumahay inay ku dhacdo in guuldarrada noocaas ee electionka ku timaado inaynu u kala tarno reero oo dawladdaasi inoo kala jirtay inoo kala jibisay waxaan furayaa ummadda reer Somaliland inay si toosan maanta aqlabiyadooda mucaarifino 6 gobol ilaa awdal marooda jeex togdheer sool iyo sanaag maalinta inaugurationka December 14 dhammaan ummadda isu soo baxday qaadacdo diido si yar iyo si fududba iyo si adagba u diido systemka la dhacay ee fraudka inaan la qaadan karin dictator iyo military dambe inaan loo ogolaan dambeyn laba reer oo ku shiraakooba waxaynu soo dagaalanay waynu diidanay maanta bari way diidanay saadama way diidanay sida kaliya lagu heli karaa calaw arrintan waxa weeyaan dawladdaas oo 6 bilood ka bacay fariisata oo ka tashada aayaha dambe mustaqbalka reer Somaliland sidana si anfacaysa maaha wahagaag aad iyo aad baad mahadsantahay kaasna waxa Mustafa Martin oo aan ka wareysanayay barnaamijkeennii imtixaanaha ee qiimeynta oo maanta aan dul istaagnay ama si gaar ah aan u eegnay doorashooyinkii ka qabsoomay Somaliland haddaba doorashooyinkaasi sidee bay u dhaceen sanadkan 2017 maxay ahayd rajada caalamku sidee ay u arkayeen sidee loo codeeyay sideese loogu shubtay maxaa khasaare ka dhacay dhinaca dadweynaha dhaawac iyo dhimashaba hadaladii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo qaarkood ay isburinayeen amaba la sulugsanaa mustaqbalka Somaliland ee xisbiyadu sidee bay noqon doonaan doorasho dambe oo xisbiya la isugu yimaado ma iman doonaan hayeeshee waxaa jirta iyaduna qodob kale oo aanu eegnay oo ahaa xisbiga wadani madaaqadu ka baxay mise uu soo noqon doona uu ka soo kaban doonaa jugta gaadhay waxaan iyana barnaamijkeena aan gudaha aan ku eegnay gobolada darafyada iyo rajadooda sida ay noqon doonto mustaqbalka iyadoo ahayd markii ugu horeysay oo si hufnaana oo ballaaran loogu codeeyay gobolada Sool iyo Sanaag niyad jab inta laag ayaa soo gaari kara dadkaasi maxay noqon doontaa mustaqbalka aayaha Somaliland tani kuna keenay dambe barnaamijkan oo kala daawadayaal intaan dib u kulmi doono waa Cali Xaraare iyo Mustafa Martin oo dhamaantiin midka ka tagay sida iyo nabad galiyo adiga baa mahadsan thank you